أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول. أحزان قلبي لا تزول حتى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ودي سلامي ملول بأجوكتان. Welcome back again to Ashraf Academy Calling. Okay, waxaynu socdaa casharadeenii taxana ahaay haddii ay maalintii ku horeysay oo aad janalka soo booqatid waxaan ka codsanaynaa inaad subscribe ku saartid gambaleelkana furatid si uu ku soo gaaro cashir walba aynu soo gelino. maantana waxaan qaadan doonaa cashir aad u xiiso badan, topic about beggars, topic ku saabsan tuugsadayaasha. topic mawduuc about ku saabsan beggars, tuugsadayaasha. Okay, haddii aan guda galno, as we know, sidaan ognahay, pagan tuugsiga is not good for the people, uma wanaagsana dadka. As we know, sidaan ognahay, pagan tuugsiga is not good for the people, dadka uma wanaagsana. And it is shame to beg someone like you, ceeb ayayna kugu tahay inaad tuugsadid qof adiga oo kale ah. It is shame to beg someone like you, ceeb ayayna kugu tahay inaad tuugsatid qof adiga oo kale ah. It is shame to beg someone like you, ceeb ayay kugu tahay inaad tuugsatid qof adiga oo kale ah. Beggars, tuugsadayaasha, don't shy for the people, dadka kama xishoodaan. Beggars, tuugsadayaasha, don't shy, kama xishoodaan for the people, dadka. Beggars, tuugsadayaasha, don't shy for the people, kama xishoodaan dadka. It is a good for you to beg Allah, waxaa ku wanaagsan inaad oo aad baridid Allah instead halkaad of begging ka bari lahayd human being, qof bil aadan ah. Okay, aan ku soo celino. waxaa lagu dhahay beggars, tuugsadayaasha, don't shy, ma xishoonayaan for the people, dadka kama xishoonaya. It is good for you, waxaa ku wanaagsan to beg inaad tuug oo baridid Allah instead halkaad of begging aad ka baryi lahayd human being, bil aadan. It is good for you to beg, waxaa ku wanaagsan inaad baridid Allah instead halkaad of begging human being aad ka baryi lahayd bil aadan. We seek protect to Allah, Allah ayaan ka magan galnay. We seek protect to Allah, Allah ayaan ka magan galnay. Begging tuugsiga is a common practice, waa dhaqan caadi ah in our country, ee wadankeena. Begging tuugsiga is a common practice, waa dhaqan caadi ah in our country, wadankeena. Begging tuugsiga is a common practice, waa dhaqan caadi ah in our country, wadankeena. You can see, waad arki kartaa, wherever, meel walbo you go aad aado, beggars, tuugsadayaal. You can see, waad arki kartaa, wherever, meel walbo you go aad aado, beggars, tuugsadayaasha. meel walbo aadid, tuugsadayaasha waad arki kartaa aluu dhahay. Okay, some beggars, tuugsadayaasha qaar are blind, waa indhoolayaal, and some others are crippled, qaarka kalena waa cuuriyaan. Okay, some beggars, tuugsadayaasha qaar are blind, waa indhoole, some others kuwa kalena are crippled, waa cuuriyaan, and some others kuwa kalena are old, waa da, and weak, waana daciif. They can't work, ma shaqay karaan, and they can't get, mana heli karaan income, dakhligooda. That cause, taas ayaa ku sababtay to beg inay tuugsadaan. Okay, some others kuwa kalena are old, waa da, and weak iyo daciif. They can't work, ma shaqay karaan, and they can't get income, mana heli karaan dakhligooda. That cause, taas ayaa ku sababtay to beg inay tuugsadaan. Okay, they determined, waxay go'aansadeen to live, inay ku noolaadaan other people's income, dadka kale dakhligooda. They determined, waxay go'aansadeen to live, inay ku noolaadaan other people's income, dadka kale dakhligooda. But laakiin there are, waxaa jira some beggars, tuugsadayaasha qaarkooda, those kuwaasoo smoke, ku cabo cigarette, sigaar. but laakiin there are, waxaa jira some beggars, tuugsadayaasha qaar, those kuwaasoo smoke, ku cabo cigarette, sigaar, and qaad iyo qaad.
tuugsadayaal ayaa jiro oo ku cuna qaad iyo sigaar. Okay, jewelers qaad cunayaasha in fact run ahaantii ama xaqiiqdii those are not beggars kuwaasi ma ahan tuugsadayaal. Jewelers qaad cunayaasha ama qaad ruugayaasha in fact xaqiiqdii those are not beggars kuwaasi ma ahan tuugsadayaal. Appropriate waxaa ku habboon to give something in la siiyo shay. Okay, beggars tuugsadayaasha. Appropriate waxaa ku habboon to give in la siiyo something shay. Okay, intaas ayaan idinku soo gabagabeynayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. caafimaad ayaa idinka tagay.